gudoomiyaha gobolka Xaysimo Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa maanta kulan la qaatay bahweynta dumarka ee ku dhaqan degmada taariikhiga ee Taleex ee xarunta gobolka Xaysimo. kulankaasi ayaa ujeedkiisu ah sidii qaadaan lagu ururin lahaa dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan gobolka Xaysimo. waxaana maalinta berita 18 May dhammaan gobolada Soomaaliland laga xusi jiray maalinta goonistaagga Soomaaliland oo dhammaan gobolada Soomaaliland laga dabaaldegi jiray. hase ahaatee madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaan ayaa ku dhawaaqay dhawaan in maalinta 18 May ay tahay maalinta qaadaan ururinta dadka abaaruhu saameeyeen. dhammaan shacabka reer Soomaaliland ay ka qayb qaataan maalintaasi. kulankan ay maanta wada yeesheen barasaabka gobolka Xaysimo iyo haweenka gobolka ayaa waxay isla qaateen in loo istaago qaadaan ururinta maalinta 18 May ee foodayna ku soo haysta. haweenkan ayaa sheegay inay abaarihii wali ku sii jiraan gobolka Xaysimo ayna u baahan yihiin taakulo degdeg ah wixii awoodooda ahna ay ururin doonaan dadka abaartu saameysay. ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Xaysimo Cabdirashiid Maxamed Axmed isagoo ka warbixiyay gudoomiyuhu ujeedka kulankan ay maanta wada yeesheen isaga iyo haweenka gobolka Xaysimo. waxaan idinku bogaadinayaa shirkan aad ka soo qayb gasheen. waxaana saakaan sugu nimi oo yahay shirkeennu inaynu ka qayb qaadano abaabulka dalka ka socda oo runtii dal iyo dibadba shacabka Soomaaliland iyo dawladuba ay isla qaateen in qaadaan lagu ururiyo fundraising loogu sameeyo dadkii abaarta ay waxyeelaysay ee xooluhu ay ka dhamaadeen iyo dadkii ku barakacay abaartii wadanka ka dhacday. runtii madaxweynaha jamhuuriyadda markii hore wuxuu magacaabay guddiga taakulaynta abaaraha, imikana wuxuu magacaabay guddi ka shaqayn doonta hawsha gobolada oo dhan mari doona. innagana waxayna ku waajibaa inaynu ka qayb qaadano oo haddaynu xaysimanahay qaadhaanka la ururinayo oo loo ururinayo shacabka Soomaaliland ee abaartu ay dhaqaalahoodii hoos u dhigtay ee waliba reer miyiga u badan iyo tuulooyinka. waxaan idinku boorinayaa in ay hawsha iyada doorkiina ka qaadataan, guddi aad samaysaan, qoys walba gurigiisa iyo albaabkiisa aad ku garaacdaan walaalo wixii tamar ay hawsha kaga qayb qaadan karo kaga qayb qaato. waxa la yeerbad ururtay masaar bay noqotay waxa soo dhan oo shacabka Soomaaliland oo meel walba jooga marka la isu geeyo waxa ka soo baxaya wax weyn oo wax tarar runtii dadkii dhibaataysnaa. sidoo kale haweenka gobolka Xaysimo ee degmada Taleex ayaa halkaasi hadalada iskaga dambeeyay. halkan waxaa shir wanaagsan oo munaasabad la noogu qabtay barasaabkii gobolka Xaysimo Cabdirashiid Maxamed Axmed. haddaanu haweenweynihii Xaysimo ama ka Taleex shirka uu gudoomiyuhu noo qabtay oo taakulaynta gurmadka abaaraha Xaysimo ah waanu bogaadinaynaa, waanu mahad celinaynaa, waanu soo dhawaynaynaa. wixii tamartayada ah, wixii taakulayna, wixii nala soo gudboonaada intaba diyaar baanu nahay gudoomiye. waanu ururinaynaa qaadhaanka, diyaar baanu nahay dalka iyagana waxbaanu u qabanaynaa. haddaanu haweenweynihii Taleex, haddaanu haweenweynihii gobolka Xaysimo waanu ku bogaadinaynaa, waanu kugu mahad celinaynaa sida wanaagsan ee sharafta leh ee hambalyada leh ee milgada leh ee qiimaha leh ee maamuuska leh oo aad noo soo gaarsiisay. annaguna waanu ka qaadanay, gacantaanu kula qabanaynaa. wixii qaadhaana oo tamartaya ma ka hakraano awal waa u taagnayn oo annagaan cid la kaashan baan u taagnayn oo miya magaalo abaartu waa taabanis balse baahidii sidii bay u taagantay, bugtadii sidii bay u taagantay. waxaanu kala mahad celinaynaa dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabkeeda, hay'adaha oo dadka u tumurcaaday wixii liita in la taageero oo meel looga soo wada jeesto oo wax la taro oo loo soo jeesto oo fadhiga looga kaco diyaar baan u nahay. halkan waxaanu isugu nimi shirka uu gudoomiyuhu noo furay waanu qaadanay waana la shaqaynaynaa waanu ku bogaadinaynaa. waxaanu idinku mahad celinaynaa sida aad dadka ugu shaqayseen madaxda Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliland iyo shacabkiisa deeqda uu gaarsiiyay baan ugu mahadnaqaynaa. Xaysimo iyo haweenka gobolka ayaa ku soo beegmaya xilli uu dalku soo maray dhibaato abaareed oo aad u weyn isla markaasina uu maalmihii u dambeeyay roob lixaad ay ka daayeen guud ahaanba gobolka Xaysimo. waa Maxamuud Aadan Askar Maxamuud Gurey, telefishinka caalamiga ee Somali News.
degmada Taleex ee gobolka Xaysimo.